السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر هذا معهد كيجر سوماليا waxaan rabaa 5 daqiiqo oo kamid ah waqtigaaga inaan maanta isiiso waxaan rabaa inaan kala hadlo hal arrin oo muhiim ah arrintaas oo aan ka dhaxalnay markii dadka badankood ay noo yimaadeen iyagoo ka hadlaya in CV inaan u qorno inaan wareysi iyo interview inaan kala qayb qaadano okay qodobkaas waa qodob aan cid walba weydiiyo qof walba waa weydiiyaa adiga waa ku weydiinaya qof kasta oo yimaadana waa weydiiyaa waxay tahay su'aashaas adigana aan rabay inaan ku weydiiyo personal brandingaaga waa maxay do you have a personal brand ma leedahay magac ma leedahay macnaha maxaa tahay haddaan ku iraahdo maanta isu kay sheeg waxa laga yaabaa inaad tiraahdo magacayga waxa la yiraahdaa Faarax Cali Nuur baa la yiraahdaa magacaan Faarax Jaamac Xirsi waa la yiraahdaa waxaan joogaa magaalo Hebla waxaan intaas oo sana accounting ka soo shaqeey no anigu waxaan rabo waxay tahay Faarax marka ay tiri waa inaan garan karo Faarax inuu ku fiican yahay accounting-ka ya Faarax inuu ku fiican yahay management-ga Faarax inuu ku fiican yahay marketing hadda aan ku iraahdo iiga waran Microsoft ama Google markii waxa leedahay Google waxa la yiraahdaa engine searching engine weeye waa lagu baaraa wuxuu ka tirsan yahay kambaniyasha alphabet la isku yiraahdo waxa maamula Hebel waxa jooga Hebel sanadkaas la abuuray aan soo adiga personality-gaaga marka waxa laga rabaa inay leedahay brand qof walba oo naga tirsanna waxa la rabaa brand waxa laga yaabaa in aragtid qof ku dhahayo waxaan ku takhasusay waxaan aad u dabagalay qaabka qashinka recycling lagu sameeyo caagadaha sida recycling lagu sameeyo waxa laga yaabaa bachelor thesis inay ahayd culumta siyaasadda laakiin maanta wuxuu ku takhasus yaani wuxuu raadiyo dabagalay oo khibrad maanta u leeyahay branding uu lagu xiri karo caagad kasta oo la rabo in la bedelo isaga wax laga weydiinayo fine adiga waxa laga rabaa do you have a brand adiga isweydii brand ma leedahay haddaadan magac lahayn waxa la rabaa magac inaad samaystid sida magac ku samaysan kartaa kow horta waxa la rabaa inaad warqadii qalin soo qaadatid qof walba oo naga mid ah oo hadda video-ga daawanay warqadii qalin soo qaado 3 su'aalood kaliya way 3 su'aalood kaliya ka jawaab kadibna hoos aan ka xariiqeynaa waxaan leenahay that's your brand taas way shaqadaada taa way adiga qofka aad tahay Faarax hadii lagu yiraahdo Faadumo lagu yiraahdo waxaan leenahay Faadumo marketing okay su'aasha ugu horeysa waxay tahay who are you horta adiga maxaa tahay magacaaga qor meesha waxbarashada ka soo baratay qor waxaad qortaa waxyaalo aan interview-ga lagu qorin waxaad qortaa waxyaalo aan CV-yada lagu qorin waxaad qortaa waxyaalo aan shaqada laga sheegan waxaad qortaa waxyaalo badankeed aan dad u sheegin maxay tahay dugsiga sare form 4 ilaa iyo dugsiga hoose oo class 1 ah inta u dhaxaysay maxaa qaban jirtay wax shaqo ka ma rabo kubadda ma ciyaari jirtay yes qor cilaanka ma saari jirtay yes qor maxaan ku iraahdaa ii sheeg ma jeclaan jirtay inaa idaacadaha iyo soo istaagto daabuurka yes qor halkaas waxaan ka soo saareynaa marka brandiga cid aad tahay warqadda marka qortid aad video-ga joojisid oo aad dhamayso kadib su'aasha labaad baa u tageynaa waxay tahay maxaa ku fiican tahay wixii aad qortay oo adigu aad diyaarisay maxaad ku fiican tahay waxaad qortaa waxa aad ku fiican tahay waxa laga yaabaa waxaad ku fiican tahay inay tahay team leader inaad noqoto team leader haddaad rabto inaad noqotid taariikhdaada hore soo eegaysaa markaas waxaad dhahaysaa team leaderkan ku fiican hadhow management-ga iyo meelo kale taan ku sii recommend gareynaynaa maxaa ku fiican tahay markaad qortid maxaa ku fiican tahay waxaad qortaa qiimo maxaa kuu sameeya haddaad team leaderka aadid oo management-ga aadid qiimo ma kuu samayn kartaa qiimo wax ma ku yaani value ma ku yeeli kartaa qiim adiga ma ka dhigi kartaa qof hadii loo baahdo in team leaderka wax laga ogaado adiga ma lagu yeeri karaa society-ga ku dhex jirto qiimo ma u leedahay inaad management-ga inaad baratid accounting inaad baratid society-ga ku dhex jirto ma u leedahay maxaan ku dhaaf faa'iido sida awoodeed 3 qodob marka qorto waxa diyaarisaa waxa aad ku fiican tahay kaliya waxaan rabaa inaan insha Allah ku soo koobo intaas 3 qodob comment-ga hoose ayaad nagula wadaagi kartaa tababarro kaleetana insha Allah waan idin soo dhigi doonaa bilaasha qof walba sidaas oo kaleeto 5 daqiiqo waqtigiisa kamid ah mar walba ka qaadan doona anagoo ku faa'iideynayno barnaamijka aad u baahan tahay Facebook naga eeg
HR Soomaaliya website-keena tag hrsomalia.so sidoo kale subscriber saar page-keena aad baa u mahadsantahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.